runtii maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno xorriyaddu waxay noqon kartaa laba siyaabood. siyaabada ugu koowaad ayaa ah qofka bini'aadanka inuu xor u noqdo nafsadiisa, go'aamiyo meeshuu hiigsanayo wax rabo. midda labaad ayaa ah xorriyadda fikirka, waa midda ugu badan bini'aadanka intiisa badan ay gaarin. Soomaali maanta dhalinyaro ahaan anigan kula hadlay waxa ah qof da'yar ah Soomaali ah. marka maanta run ahaantii marka su'aasha aan markaas isweydiiyo waxa kamid ah war ma gaaray fikradii mise inaan ka xoroobo fikradaha dadka kale. run ahaantii marka Soomaali maanta dhalinyaro ahaan waxa haysanaa wadankii, waxa haysanaa dhul nagu filan, Ilaahay khayraad inta basiiyay. marka waxa rabna maanta marka dhalinyaradeena badanaa waxay ku fikiraan mise u hanqal taagaan inay meel kale tagaan, waxay u hanqal taagaan fikrada bini'aadan kale mise wadamo kale la imaadaan. waxaa la dhahaa post colonialism. Soomaaliya mise Afrika oo dhan hadda aragtaan badankood waxay ku jiraan wax la dhaho post colonialism oo ah fikradihii ilaa hadda kama xiroomin gumaysiga. maanta ilaa hadda waxaa rabnaa in laga yaabo Ingiriis qaybtan Soomaaliya gumaystay, Itaaliya qaybtan gumaysatay, Faransiiska qaybtan gumaysatay. at the same time waxa fikirkeena mise historygeena ku egya ilaa halkaas war yaa ahayn Ingiriis mise Italy mise Faransiiska hor inta imaanin adiga yaa ahayd. waxa ahay Soomaali, waxa ahay qof awooda wax kasta sameeya. marka qofka Soomaaliga ah marka dhalinyarada maanta waxa u baahanaa waxay tahay guys, waxa u baahanaa inaan hiigsano hiigsi aad u dheer. waxaa rabnaa maanta inaa adiga ku fikirtid war Soomaaliya tahay. marka su'aasha rabo inaad isweydiiyo badanaa waxaa dhahnaa qofka Soomaali daraadiisa miyaa ka celinaysa inuu meel dheer gaaro, ma Soomaalinimadaada ayaa ka celinaysa inaad la tartantid Ingiriiska adiga sheegaysid, inaad la tartantid Talyaaniga adiga sheegaysid. maya, laakiin waxa ka horeyso inaan fakarno ka xirowno fikradaha kale, markasta ku dadaalno si dhalinyaradeena maanta hankooda iyo helaan xorriyad xagga fikirka ah. markaas ayay imaanaysaa wadan xor ah, dhalinyaradiisa wax soo saarta iyo hiigsi dheer la yeesha. waxaa la joogaa waqtigeeni, waxaa la gaaray waqtigii dhalinyarada Soomaaliyeed fikirkooda soo bandhigi lahaayeen. waxaa la gaaray waqtigii qof kastoo Soomaaliya maanta dhalinyaro hadda aragto wadankaas waxaa la dhahaa waa dadka populationka ugu da'da yar waay Soomaaliya. laakiin fiiri wadanka Soomaaliya kan maanta IT ku fiican waa qof dhalinyaro ah, kan maanta ciidanka ah waa qof dhalinyaro ah, kan maanta dhakhtarka waa qof dhalinyaro ah. laakiin waxa u baahanaa inaan fikradeen isku geeno saa xor u noqono, u go'aamino wax mustaqbalkeena ah. ma ahan in noola go'aamiyo wax ummad kale keeneen mise fikrado kale keeneen. waa mahadsantihiin.